Sidee ayaa loo beeraa tamaandhada? Maxaadse u baahan tahay ka hor inta aadan beerin tamaandhada? Sida aan la wada soconnoba, waddankeena dadka wax beerta boqolkiiba 20 ayay ahaayeen markii ay dowladdu jirtay. Laakiin iminka hoos ayay u dhacday tiradaasu, oo dadka wax beerta waxa ay ka yar yihiin boqolkiiba 20 bay ka yar yihiin. Marka waxaana saameeyey dagaaladii sokeeye, iyadoo markii uu dagaal dhaco ay dadkii markaa khibradda lahaa ama wax beeranayay ay la guuraan siidhkii iyo khibraddii oo meelo kale ay u barakacaan, sidaasna ay beerihii ku baaba'aan oo ay ku burburaan. Sidoo kale beeraha waxa baabi'iya waxa weeye nabaad guurka iyo abaaraha ayaa iyaguna dhaawac weyn u geystay. Marka maanta waxaynu ka hadlaynaa mawduuca tamaandhada sidii aan markii horeba ka dhawaajiyey. Tamaandhadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu sahlan in la beerto. Tallaabooyinkan soo socda waa kuwa ugu muhiimsan ee uu qofku u beeran karo tamaandhada. Isagoo ka bilaabaya seedka ayuu ka bilaabayaa. Sidaan la wada soconno, tamaandhadu waxa ay faa'iido badan u leedahay jidhka bini'aadamka, waxaana ku jira tamaandhada macaadinta kale ah potassium-ka, vitamin B-ga iyo kuwo kale oo aanan halkan kusoo koobi karin. Marka qodobka u horeeya waxa weeye qofku tamaandhada wuxuu ka bilaabayaa seedka ayuu ka bilaabayaa. Isla seedka tamaandhada ayuu ku ridayaa ciidda. Markaa shay yar buu soo qaadanaya oo ku ridayaa koob yar oo kale, wax yar oo maaragtay shay yar oo marka hore ku ridayaa ciiddii ku shubayaa, dabeedna seedkii buu ku ridayaa. Adigu muddo usbuuc iyo xoogaa baa laga yaabaa inay qaadato ayaama ah. Kadibna geedkii isagoo yar buu soo baxayaa. Marka uu geedku soo baxo, waxaa lagu wareejinayaa shay kii ka weyn, ciiddiina waa lagu shubayaa. Marka halkaasaa geedkii lagu yara tallaalayaa. Waxa weeye dee qalabka un baad u baahan tahay. Waxa weeye shay yar oo aad ku ridid un weeye qalabka aad u baahan tahay oo geedku ku bixi karo. Marka waxa weeye geedkii waad waraabinaysaa, biyaha waad u qiyaasaysaa, biyo badan ku shubi maysid. Maxaa yeelay biyaha badani waxbay yeelayaan, geedkii waa geed yar oo koraya. Markii geedku yara koro oo uu xoogaa dheeraado, laamuhu ay koraan, wuxuu u baahan tahay tamaandhadu meel ay raacdo bay u baahan tahay. Qoryo ama tiirar yaryar ayaad u taagaysaa ama bir meel ay raacdo. Haddii kale waa ay qalloocsamaysaa oo dhulka ayay madaxa la soo gelaysaa, kadibna way xumaanaysaa, geedkii wuu dhimanayaa. Marka waxaa la rabaa in tiirar yaryar oo ay bahashu ay raacdo in loo taago. Aad iyo aad bay taasi muhiim u tahay. Markaa geedkii aad tiirarka u taagtay oo aad waraabinaysay si joogto ah oo aad ka ilaalinaysay bahalaha iyo waxyaabaha xumaynaya geedka oo dhan aad ka taxadaraysay, geedkii muddo 48 cishaa ilaa 70 maalmood kadib ayuu markaa dhalayaa. Midhihii tamaandhada ayaad ka guranaysaa. Midhihii tamaandhada markaad ka guratid waa suuq geynaysaa. Geedkiina waad ilaalinaysaa oo waxa weeye maintenance baad ku samaynaysaa. Intaasaan kusoo koobayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa in dadkeenu wax beerto oo aynu ka kaaftoonno khudaarta laynooka keeno dalalka shisheeye, oo markaa dadkeenu ay lacag adag kusoo gataan, oo waxa weeye innaga oo samaysan karna oo beeran karna wax aynu markaa aynu dibadaha aynu lacag kaga bixino. Waa mahadsantihiin.